السلام عليكم صاحبيال وصاحبكين تام الركاب isku laabasho wanaagsan filimku wuxuu ku bilaabmaa iyadoo Max uu ku dhex quusay biyaha qabowee badda isagoo ku dadaalay inuu ka soo baxo biyaha balse dadaalkiisu waa mid aan midho dhalin ugu dambeyn uu quusaya waxaana sidoo kale badda ku jira meydadka dambeeliyaal kale isagoo weli sii quusaya wuxuu bilaabaa inuu isku dayo inuu isdhaqaajiyo wuxuuna dib ugu laabanayaa xasuus taasoo maalintii uu helayay xaaskiisa iyo gabadhiisa oo la dilay waxa uu hadalka ku darayaa in ficilkiisii xiga uu ahaa qalad fudud in la sameeyo filimku wuxuu isku bedelayaa hal toddobaad ka hor xafiiska booliska halkaas oo Max ka shaqeynaya qaybta kiisaska fudud laba askari ayaa u keenaya kiisas cusub midkoodna wuxuu sheegayaa in kiiska lagu daayo miiska Max uu yahay mid dhintay oo aan xal loo heli karin askariga kale ayaa Max ku martiqaaday cabitaan balse Max uma jawaabo mid ka mid ah askarta ayaa la yaabana hab dhaqanka Max wuxuuna weydiiyay askariga kale wax ku saabsan nolosha Max balse askariga kale ayaa u sheegay in xaaskiisii iyo gabadhiisii la dilay cidii dishayna aan la arag oo wax cadeynaa la waayay kadib kiiskiisii la iska xidhay laakiin Max uu weli ku daba jiro raadinta dilaaga xaaskiisa maalin maalmaha kamid ah Max wuxuu booqdaa guri uu leeyahay nin xogaal u ahaa wuxuuna arkayaa in xafladi ka socoto wuxuu xoog ku galayaa guriga mid kamid ah martida xafladda ayaa arkaysa Max waana ay ka helaysaa kadib uu la hadashaa kadib wuxuu ku arkaa tattoo sida shambirta oo kale ah oo gacanteeda ku sawiran taasoo shaki ku abuurta Max inta ay hadalkiis weydaarsanayaan Mona oo ah walaasha Natasha ayaa si xoogaha uga jiidata una sheegta Max inuu ka fogaado walaasheed Max wuxuu tusaya calaamada booliska taasoo sababtay inay Mona ka tagto Max wuxuu dareemaa shaki ku saabsan xafladda wuxuuna si tartiib ah u baarayaa guriga halkaas oo uu ka helo qol dad ku dhex isticmaalayaan dhalooyin darooga wuxuu arkaa tattoo kii Natasha oo kale taasoo shakigiisa ku kordhisa inta uu si dhow u eegayo nin wejigiisu tattoo ka buuxo ayaa si qarsoodi ah u daba istaaga markay yasarkaan waxay isku eegaan si cadowtinimo ah balse Natasha ayaa imanaysa goobta waxayna ka soo kaxaysaa Max iyadoo kuleh ninkaasi waa halis ah u dhawaanin Max wuxuu keenaa gurigiisa wuxuuna weydiiyaa cidda ninkaasi yahay balse Natasha way iska indhatirtaa su'aashaas waxayna bilowdaa inay isku daydo inay shukaasato iyadoo kule waxaan ku buuxin karaa booskii xaaskaagii dhimatay Max uu ka xanaaqayaa arrintaas oo waa uu ku qaylinayaa isagoo kule iga bax guriga isla hadda Natasha waxay dibadda uga soo baxdaa gurigii waxayna wacdaa dadkeedii daroogistayaasha ahaa si ay u kaxeeyaan balse ninkii tattoo lahaa ayaa si qarsoodi ah u daba socda markay gasho meel cidla shimbir cabsi ah oo madow oo duulaya ayaa ka daba yimaada waxay isku dayaysaa inay ka cararto balse way dhacdaa oo halkaas ayay ku dishaa shimbirtaasi maalinkii xigay markuu Max shaqada soo tago askari ayaa u yeedha wuxuuna ku leeyahay kaalay goob dambi ka dhacay ayaan tegaynay markay tagaan waxaa la tusaa meydkii Natasha boorsadii Max sidaa darteed Max wuxuu noqdaa eedeysanaha koowaad ee laga shakiyo sarkaalka ayaa si degdeg ah uga soo kaxeeya goobta dhacdada wuxuuna la tagaa meel cidla ah oo uu ku weydiiyaa su'aalo ka saabsan xiriirka kala dhexeeya gabadha dhimatay Max wuxuu beeniyaa inuusan ka dambeyn dilkeeda sidoo kale waxa aqoon u lahayn wuxuuna ku adkaystaa inuusan waxba ka ogeyn dhimashadeeda markuu sarkaalku isku dayo inuu si qoto dheer wax uga ogaado Max ayaa si cadhi leh uga falcelinaya wuxuuna ku eedeeyaa sarkaalka inuu ku guuldareystay inuu helo dilaaga xaaskiisa iyo gabadhiisa intaas kadib sarkaalka waxa taabanaya hadallada Max markuu xafiiska tago isla maalintaas wuxuu bilaabaa inuu dib u eego faylka kiiska Natasha sawirka tattoo ku yaala gacanteeda ayaa soo jiita dareenkiisa wuxuu si dhaqso ah soo saaraa faylasha la xidhiidha xaaska Max ee la dilay markuu isku eego faylasha wuxuu ogaadaa in mid ka mid ah dilayaasha xaaska Max uu lahaa tattoo lamida kii ku yaala gacanta Natasha taasoo la micno ah inay isku dhawaayeen dilaaga Natasha isla markiiba wuxuu wacaa Max balse lambarkiisa lagama qabto kadib fariin codha ayuu duuba dhanka kale Mona waxay maqashaa geerida walaasheed waxaana sawirka Max iyo shaqaalaheeda maadaama Max ahaa qofkii ugu dambeeyay ee la kulmo walaasheed waa ay ka shakisay dhinaca kale Max wuxuu dhageystaa fariinta codka ee sarkaalka uu sheegayay in laga yaabo inay jirto xiriir ka dhexeeya dhimashada Natasha iyo tii xaaskiisa fariintuna ugu dambeyntii waxa uu sheegtaa inuu yimaado guriga sarkaalka Max si degdeg ah ayuu ugu soo laabtay guriga sarkaalka wuxuuna arkaa in albaabkii gurigu furan yahay taasoo uu ka shakiyo wuxuu soo saartaa baastola wuxuuna si taxadir leh ku galaa gudaha hase yeeshee wuxuu arkaa meydka sarkaalka oo dibadda yaala markuu isku dayay inuu u dhawaado qof baa si lama filaan ah u soo weerara kuna dhafta feer xoogan kahor intuusan miyir beelin Max wuxuu rasaasayay dilaaga dhowr jeer markii dambe Max wuxuu ku baraarugaa isagoo isbitaalka jiifa wuxuuna arkaa macalinkiisii hore oo ag taagan macalinka ayaa u sheega in sarkaalkii saaxiibkii ahaa dhintay qofkii soo weerarayna uu baxsaday isagoo aan wax raad ah ka tegin taasoo Max ka dhigaysa eedeysanaha koowaad ee weerarka Max markuu arrintaa maqlo wuxuu go'aansadaa inuu ka baxsado isbitaalka si uu qayb uga galo aaska sarkaalkii saaxiibkii ahaa kadib markuu intaa u sheego macalinkiisii hore ayaa u sheega inuu dhar cusub ka soo xidho xarunta shirkadiisa taasoo ah shirkada daawooyinka samaysa markuu gudaha u galo dhismaha Max wuxuu arkaa xayisiin la xidhiidha daawo cusub oo shirkadu soo saarayso inta uu eegayo madaxa hanti-wadaagga shirkadan ayaa u timaada oo ka tacsiinaysa dhimashada xaaskiisa taasoo ahay shaqaale muhiim ah oo shirkadan ka tirsanay markuu dhar cusub xirto Max wuxuu aadaa aaska sarkaalka isla markaana xaaska sarkaalka ayaa barta ku dharbaxda iyadoo ku eedeynaysa inuu ninkeeda geeridiisa sababay markuu
banaanka u baxayana sarkaal dambi baadhaha ayaa joojiya oo ugu yeedha saldhigga si loo weydiiyo su'aalo la xidhiidha dhimashada Natasha. markuu saldhigga tago Max wuxuu beeniyay inuu dilay Natasha wuxuuna caddeeyaa inuu kula kulmay xafladda kadibna uu gurigiisa geeyay kadibna ay kasoo tagtay. sarkaalka dambi baadhaha ma rumaysanaya hadalkaas wuxuuna si cadhale miiska ugu dhufanayaa faylka kiiska Natasha. markuu Max arko sawir ka mid ah faylka wuxuu xasuustaa in sarkaalkii dhintay uu wax muhiim ah u sheegay ka hor inta aan la dilin. wuxuu si xoog leh u galaa xafiiska sarkaalkii dhintay ee saldhigga wuxuuna bilaabaa inuu ka baadho faylasha ku jira armaajooyinka. arrintani waxay ka cadhaysiisaa askartii kale ee xafiiska joogtay kuwaasoo bilaabay inay si xoog leh u garaacaan albaabka si ay uga saaraan xarunta Max. dhanka kale Max xoog ayuu ku jabiyay armaajadii wuxuuna ka helaa faylka Natasha. wuxuu ogaadaa qofkii ugu dambeeyay ee ay la hadashay markii ay guriga ka baxaysay uu ahaa nin la yidhaahdo Owen Green. sidoo kale markuu eegayo faylka xaaskiisa wuxuu ogaadaa in mid ka mid ah dilayaashii xaaskiisa uu lahaa taatu lamada kii Natasha. kadib markuu xogtan helo wuxuu ka baxsadaa daaqada iyadoo isla waqtigaas albaabka la jabinayo. habeenkaas isagoo Max gurigiisa u sii socda wuxuu dareemaa 3 nin oo si qarsoodi ah u daba socda. wuxuu si degdeg ah ugu cararaa luuq cidla ah isagoo baastiladiisa la soo baxaya si uu u sugo raggii. laakiin qof kale ayaa baastoolad kaga qabta dhabarka wuxuuna ku amraa inuu hubka dhigo jilbahana dhulka dhigo isla markaana isdhiibo. Max si dhaqso ah ayuu u fuliyaa amarka. waxaynu ogaanaynaa in qofkaasi uu yahay Mona waana walaasha Natasha. waxay bilaabaysaa inay Max ku garaacdo bir iyadoo weydiinaysa sababta dhimashada Natasha. Max isagoo la garaacayo wuxuu u sheegay inuusan waxba ka ogeyn geerida walaasheed. sidoo kalena wuxuu u sheegayaa in dilaagii Natasha uu isna ku lug lahaa geerida xaaskiisa. Mona iyadoo ka shaki qabta arrinkaas waxay sii wadaysaa inay eedeyso Max maadaama boorsadiisa laga helay jeebka Natasha. Max wuxuu u sheegayaa in haddii uu isagu dilay uusan wax caddayn ah uga tegi lahayn jeebkeeda. waxa kale oo uu sheegaa magaca Owen Green inuu ahaa qofkii ugu dambeeyay Natasha la hadashay ka hor geerideeda. Mona markay maqasho magacaas waxay go'aansanaysaa inay warkiisa rumaysato. habeenkii waxay si wada jira u tagaan guriga Owen Green. markay dabaqa fuulaan waxay maqlaan qaylo. markay gudaha u galaan waxay arkayaan Owen oo la hadlaya waxyaalo aan loo jeedin kana baryay inaysan dilin taasoo ay ogaanayaan inuu daroogo xad dhaaf ah isticmaalay. markuu arkay Max iyo Mona Owen wuxuu dib ugu socdaa daaqada isagoo bilaabaya inuu ka hadlo hadallo isku dhex yaacsan. wuxuu u sheegay in makhluuqaad baalan leh ay dileen Natasha isla markaana ay hadda u yimaadeen inay isaga ka haystaan. Max wuxuu isku dayaa inuu dejiyo markuu arkay inuu socdo dhinaca daaqada furan laakiin Owen wuxuu sii wataa hadalladii aan la fahmi karin. kadib Max wuxuu arkaa tattoo eeg baalal shimbir oo ku yaala garabka Owen kaasoo la mid ah kii Natasha. intuu Max weli fiirinayay tattooga Owen wuxuu si lama filaan isaga tuuraa daaqada isagoo daroogadiisu u sawirayso in makhluuqaad baalan leh uu la baxay laakiin dhab ahaantii aan jirin. wuxuu si toos ah ugu dhacay gaadhi oo halkaas ayuu ku dhintaa. Max iyo Mona waxay ka baxaan guriga iyagoo naxsan balse ma ogeyn ninkii tattooga badnaa uu ka daawanayay meel sare. habeenkii dambe Max iyo Mona waxay booqdaan dukaanka tattooga ee ay Natasha ka samaysatay tattooga. markay tusaan shaqadii tattooga ahayd ee baalasha shimbirka ninkii tattooga sameynayay wuxuu u sheegay in shaqadaas ay la micno tahay hogaamiye ka tirsan halyeeyada Norse oo abaal marinaya askarta ku dhimata dagaalka. wuxuu sidoo kale u sheegaa in tattoogan astaantiisu uu yahay ilaalin waxaana markii hore xidhan jiray dagaalyahanada Vikinga iyagoo aaminsan inay ka badbaadayaan khataraha. kadib Max wuxuu weydiiyaa su'aalo kale balse nasiib xumo ninku ma garanayo intaa wixii ka badan. isla habeenkaas Max wuxuu Mona ku qaadaa gaadhiga si ay ula kulanto hogaamiyaheeda maafiyada. Mona waxay weydiisaa macluumaad ku saabsan tattooga. hogaamiyaheedu wuxuu u sheegaa in nin lagu magacaabo Lubino uu mas'uul ka yahay dhimashada Natasha iyo dad kale. sidoo kale wuxuu uga digaa inay Max la xidhiidho maadaama uu taargad u yahay dad sare oo awood leh sidaa darteedna ay iyagana dhibaato uga iman karta haddii ay la xidhiidho mar dambe. dhanka kale Max wuxuu weli ka fikirayaa tattoogii baalasha lahaa. wuxuu aadaa bakhaar uu ku kaydiya alaabtii xaaskiisa iyo dukumiintiyadeedii xafiiska. halkaas wuxuu ka helaa bashqad ay leedahay shirkadii daawooyinka ee xaaskiisu ka shaqaynaysay. markuu si xooga u fiiriyana wuxuu ogaadaa in astaanta shirkadda ee baalasha leh ay si la mid ah u eg tahay tattooyada uu arkayay. arrintaas waxay ku dhalisaa shakiga ah in qof ka tirsan shirkadda uu lug ku leeyahay dilkii xaaskiisa. wuxuu si toos ah ula kulmaa macalinkiisii hore oo ah mulkiilaha shirkadda si uu u ogaado magaca qofkii madaxda u ahaa xaaskiisa ama se supervisorka u ahaa. macalinku wuxuu isku dayay inuu ka hor istaago arrintaas balse Max uu ku adkaystaa. ugu dambeynta macalinku wuxuu siiyaa magaca kormeeraha. kadib markuu baxo Max macalinku wuxuu la kulmayaa dembi baadhe Bravo isagoo u sheegaya in Max gacanta kasii baxayo. wuxuu sidoo kale uga sheekeeyaa faahfaahinta habeenkii la dilay xaaska Max iyo gabadhiisa. waxaynu arkaynaa in Max uu guriga kusoo laabtay isagoo ka yimid shaqada wuxuuna dareemayaa in waxay qaldan yihiin. markuu cararay dhanka qolkii xaaskiisana waxaa ka hor yimid rag hubaysan. kadib dagaal dheer wuxuu tooganayaa raggaas isla markaana wuxuu galaa qolkii xaaskiisa joogtay laakiin nasiib xumo wuxuu arkayaa iyadoo dhimatay. dhanka kale macalinku wuxuu sidoo kale inoo sheegayaa inuu tuhunsan yahay shaqaale ka tirsan shirkaddu inuu yahay dilaagii xaaskiisa. wuxuuna ka codsanayaa in la joojiyo Max. dembi baadhe Bravo wuxuu ballan qaadayaa inuu Max joojin doono. maalintii xigtay Max wuxuu booqdaa kormeerihii xaaskiisa ee shirkadda wuxuuna weydiinayaa mashaariicdii dawo ee xaaskiisu ku hawlanayd ka hor dhimasho
dhimashadeda laakiin ninkii wuxuu iska dhigaa inuusan waxba ogeyn kadib Max wuxuu xidhay albaabka xafiiska wuxuuna bilaabaa inuu jir dilo si uu xogta uga helo xog hay'adii xafiiska ayaa maqasho buuqa waxaana ay si degdeg ah ugu wacdaa gudoomiyaha intaas kadib Max wuxuu baastoolad ku qabtaa kormeeraha si uu uga cabsiiyo ninkii ugu dambeyntii afka ayuu furtaa oo waxa uu u sheegaa in xaaska Max ay ka shaqeynaysay dawo lagu xajiyo awoodda jidhka ee ciidanka laakiin dawadaas waa lagu guuldaraystay waxayna ku shaqaysay boqolkiiba hal ciidamada ka mid ah halka ciidamadii kale ay bilaabeen inay isbedelaan oo ay yeeshaan makhluuqyo sixir ah oo baalal madow taasoo ay ku sababtay tijaabadii lagu sameeyey intuu faahfaahinta bixinayo koox ciidan ah oo hogaamiyaha shirkadu soo diray ahna macallinkii hore ee Max ayaa xoog ku soo gashay shirkadda si ay Max u xiraan markuu dareemay in la soo dhow yahay kormeeruhu wuxuu Max tusaa bashqad ay ku jiraan cadaymaha oo dhan wuxuu sidoo kale u ballan qaadaa inuu siin doono dhammaan faahfaahinta haddii uu Max damaanad qaado badbaadadiisa Max wuu ogolaadaa wuxuuna qabtaa bashqadii isagoo isku dayay inuu la baxsado laakiin wuxuusan ogeyn ayaa ah in ciidankii ay bannaanka ku sugayaan markay bannaanka u baxaan askari ayaa si lama filaan u toogta kormeeraha oo dilay kadib waxay qoryahooda u leexiyaan dhanka Max si ay u toogtaan laakiin Max wuu ka falceliyaa wuxuuna bilaabaa inuu rasaas ugu jawaabo taasoo keenta dagaal foolka foola intii lagu jiray dagaalka Max wuxuu bilaabaa inuu qaato bashqada meydka kormeeraha wuxuuna isku dayaa inuu ka baxsado shirkadda balse waxaa laga toogtaa garabka wuxuu u ordaa dhanka xafiiska halkaasoo si lama filaan ugula kulmo dembi baadhe Bravo kaasoo isku dayay inuu joojiyo balse Max wuu ka baxsadaa habeenkii dambe Max wuxuu muna kula kulmaa meel cidla wuxuuna ku casuumaa inay la daawato muuqaalo uu ka helay bashqada muuqaalka waxay ku ogaanayaan in xaaska Max ay ka shaqeynaysay daawo loogu talagalay inay ka saarto cabsida askarta laguna xoojiyo awoodooda muruqe waxay sidoo kale ogaanayaan in shirkadda uu leeyahay hogaamiyuhu oo ah macallinka Max ay dhab ahaantii sameynaysay dawadaas waxaa layna barayaa Lupino waa ninkii taatuuga lahaa wuxuu ahaa askari iskiisa u ogolaaday inuu qaato dawadaas muuqaalka dhexdiisa Lupino wuxuu sheegay in dawadu ay ka dhigtay mid aan waxba ka baqan sidoo kale uu ekaada makhluuqa baalale markuu Max arko muuqaalkaas wuxuu ogaadaa inuu Lupino ka dambeeyay dilka xaaskiisii Muna ayaa u sheegtay meesha uu ka heli karo Lupino Max wuxuu qaataa baaskooladiisa wuxuuna go'aansaday inuu soo dilo Lupino Muna waxay uga digtaa qatarta uu la kulmi karo balse Max wuu ku adkaystaa inuu qorshihiisa fulinayo dhanka kale Lupino wuxuu cabaa dawo kale uuna qayliyaa sidii xayawaanka habeennimadkii Max wuxuu si qarsoodaha u galaa meesha Lupino uu joogo wuxuuna si fudud u dilaa askartiisa markuu gudaha u galo xafiiska Lupino ayaa si lama filaan uga soo baxa meel madow wuxuuna Max ku dhuftaa bir si fudud ayuu Max u garaacaa sababtoo ah dawada uu qaata ayaa awood siinaysa wuxuu leeyahay xoog aan caadi ahayn wuxuuna si fudud u garaacaa Max wuxuu bilaabaa inuu ku hadlo hadallo aan la fahmayn markuu rabo inuu Max dilo macallinka ayaa Max si lama filaan ugu soo galaa wuxuuna toogtaa Lupino halkaasoo uu ku dhinto Max wuu yaabaa markuu arkay macallinkiisii balse uu raacay isagoo su'aalo weydiinaya si lama filaan ah xogayaa macallinka ayaa xagga dambe ka feedha isagoo baastoolada la soo baxaya wuxuu isku dayaa inuu dilo laakiin macallinka ayaa joojiya oo wuxuu ku amraa in Max la xidho Max ayaa gamcaha laga xidhaa sidoo kale isaguna si aamusan ayuu la socdaa kadib hogaamiyaha ayaa bilaaba inuu qortay inuu ku lug lahaa dilka xaaska Max wuxuu sheegay in shirkadiisu ahayd tan ugu weyn ee soo saarta dawada ciidamada xaaska Maxna ay doonaysay inay warbaahinta u sheegto dhibaatooyinka ay keenaan dawooyinkaasi sidaas darteed uu iskaga leexiyey oo uu u dilay si aanay fadeexad ugu dhicin wuxuu ku faanay in dilka xaaska Max uu ka dhigay mid xoogan oo awood leh wuxuu kaloo qirtaa inuu Lupino u isticmaalay si uu u fuliyo hawlgalladiisa ugu dambeyntii wuxuu qiraa inuu si cadowtinimo leh u dilay ilmaha yar ee Max kaas oo caloosha xaaskiisa ku jiray markuu warkaas maqlo Max aad ayuu murugoodaa halka xogayuhuna ku cadaadinayo inuu Max dilo si uu sheekada u soo afjaro laakiin hogaamiyaha ayaa ku qayliya wuxuuna ku amraa inuu aamuso kadib wuxuu qaaday bir weyn oo culus wuxuuna dhigay agtiisa wuxuuna laba dhal ah oo dawo ah u geliyay jeebka Max dhanka kale xogayuhu wuxuu diyaarinayaa xadhi si ay ugu tuuraan Max badda baraf kale iyadoo ay u ekaysiinayaan inuu isu dilay sababo la xiriira dawo xad dhaaf ah oo isticmaalay markuu hogaamiyuhu damco inuu Max ku xidho birta culus Max ayaa si lama filaan ah isaga difaaca wuxuuna isku dayaa inuu baxsado laakiin labada nin ayaa bilaabay inay rasaas ku furaan taasoo ku qasbaysa Max inuu ku boodo biyaha barafka markuu biyaha galay kadib aysan wax dhaqdhaqaaq ah ka muuqan biyaha waxay u malaynayaan inuu dhintay wayna iskaga tagaan meesha balse Max wuxuu isku dayaa inuu neefta isku hayo ilaa ay ka tegayaan kadib wuxuu isku dayaa inuu dabaasho si uu uga badbaado laakiin tamartiisa ayaa yaraanaysa taasoo keentay inuu biyaha hoos ugu dhaco markuu sii quusayo wuxuu xasuustaa habeenkii xaaskiisa la dilayay wuxuu arkaa dambiilayaashii oo meyd ah markuu u galo qolka xaaskiisana wuxuu arkaa xaaskiisii oo la ciyaarisay ilmahooda kadibna waxay tidhaahdaa weli ma aysan gaadhin isla erayadaas ayaa ku soo celinayay tamar xoogan taasoo ku qasbaysa inuu dabaasho isagoo jabinaya barafka ugu dambeynna uu ka baxaya biyaha kadib markuu ka soo baxo biyaha wuxuu si degdeg ah u cabaa labada dhale ee dawada si uu uga hortago qabowga xaddhaafka ah ee haya dawadu si degdeg ah ayay ugu saaqaysaa jidhkiisa waxaana siisaa tamar aad u badan taasoo keentay inuu xoog u qayliyo wuxuu bilaabaa inuu arko aragtiyo makhluuqaad baalan leh wuxuu u dhaqaaqaa si uu ugu aargudo xaaskiisa dhanka kale dembi baadhe Bravo wuxuu
yimaadaa xarunta booliiska isagoo ku eedaynaya inay si kasaa u dileen kormariyihii Max cadeymaha siinayay. wuxuu sidoo kale u wacaa sarkaal FBI ah si loo baadho dhacdada. markuu hogaamiyuhu maqlo tallaabooyinka sarkaalka wuxuu si degdeg ah u abaabulaa koox hubaysan, wuxuuna wacaa helikabtar si ay u weeraraan saldhigga booliiska una dilaan sarkaalka. laakiin markay kasoo baxayaan dhismaha shirkadda, Max ayaa si lama filaan u yimaada wuxuuna bilaabaa rasaas isagoo dilaya dhammaan raggii hubaysnaa. hogaamiyaha iyo xoghayihiisu waxay ku baxsadaan dhanka wiishka, halkaasay wacaan qaar ka mid a shirkadda iyagoo ka codsanaya in helikabtar loo soo diro. dhanka kale Max wuxuu la dagaalamaa ciidamo aad u badan oo hubaysan, wuxuuna wada dilay isagoon wax dhaawaca la gaadhsiin. kadib si lama filaan ah wuxuu u arkaa aragtiyo khiyaali ah taasoo ay dawadu tusayso. wuxuu sawirtaa makhluuqaad waaweyn oo ku hareeraysa, waxaana aynu ogaanaynaa inay tahay aragtiyo khiyaali ah oo dawadu sababayso. inta ay dawadu xakamaynaysana nin hubaysan ayaa si aamusan usoo daba istaaga isagoo raba inuu dilo, laakiin nasiib wanaag Mona ayaa si lama filaan u timaada oo bartaas ku badbaadisa. sidoo kale Max markay dawadu ka baxdo, Mona waxay ku dhiirigelisaa inuu aarguto. dhanka kale booliiska ayaa usoo socda dhismaha. hogaamiyuhu wuxuu u ordaa saqafka sare isagoo sugaya helikabtar. wuxuu mar kale wacaa madaxda shirkadda, laakiin way iska idhatiraan wicitaankiisa. markay Mona gudaha u gasho dhismaha shirkadda, waxay aragtaa xogayaha hogaamiyaha oo bambooyin ku rakibaya gidaarka. wuxuu isku daya inuu baskoolada soo saarto, balse Mona ayaa kaga horeysa oo toogata. sidoo kale raggii hubaysnaa ayay meesha ku dishaa iyadoo elevatorka raacaysa. dhanka kale Max wuxuu gaadhaa xafiiska macalinka, balse wuu maran yahay. isagoo fiirinaya dhismaha, wuxuu mar kale arkaa aragtiyihii khiyaaliga ahayd isagoo arkaya makhluuqaad baalalehoo weyn. sidoo kale booliiska ayaa hadda soo gaadhay dhismaha. si lama filaana xoghayihii dhaawaca ahaa ayaa kacaya, wuxuuna gacanta saaraya badhonkii bambooyinka taasoo sababtay qarax aad u weyn. qaraxu wuxuu jabiyaa muraayadda dhismaha taasoo sababtay in Max mar labaad miirkiisa uu helo. markaas ayuu bilaabaa inuu u dhaqaaqo si uu u dilo hogaamiyaha saqafka sare. hogaamiyuhu wuxuu sii wacayaa madaxda, balse marna lagama qabanayo telefoonka oo waa lagu adkaynayaa. hadda Max wuxuu iskeenay saqafka sare, isla markiiba hogaamiyaha ayaa laba xabadood ku rida, laakiin nasiib xumo xabadaha ayaa ka dhammaada hogaamiyaha, halka Max isagoo dhaawaca uu tooganayo hogaamiyaha shirkadda daawooyinka ahna sidoo kale macalinkiisii hore. ugu dambeyntiina wuu u argudaya xaaskiisa. kadib booliiska ayaa saqafka sare yimaada, waxaana isku hareerayaan Max si ay u xidhaan. filimku wuxuu isku bedelayaa in muddo kadib Max ayaa gelaya baar isagoo cabitaan dalbanaya, laakiin kabalyeriga ayaa u tilmaamo qof. marka uu tago qofkaasna waxaynu ogaanaa inay tahay Mona, waxayna tusaysaa guusha shirkadda soo saarta daawooyinka taasoo ay xaaskiisu ka shaqayn jirtay iyo sawirka madaxa ugu sarreeya ee shirkadda. kadib markuu arko Max, wuxuu Mona u eegaa sidii iyagoo raba inay soo dilaan madaxa ugu sarreeya ee shirkaddaas oo ah haweeneydii ku dhageysanaysay telefoonka markii hore. filimku halkaas ayuu ku dhammaanayaa. haddii aad rabtid inaad socoto filmaanta noocan oo kale, fadlan channelkeena gudaha u gal, subscribe saar, gambaleelkana furo. mahadsanid.